عبدالرحمن هذا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. shalay oo ay ahayd maalin Arbacaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay la socotaan dadweynaha baarkaysa dal iyo dibad inta jooga Soomaaliyeed waxay daawdeen anigoo nooc kale ah oo ay ka argagaxeen run ahaantii taasoo wax ay filayeen aan ahayn maadaama nin markaysa darihiisa qaar khaaska ku dhex jira bulshada markaysa danahoodana waqti gaar ku bixiyo ka shaqeeya diintiisa islaamka iska raacda adkaartiisa iyo wata cidna markaysa aan wax u dhibin ayaa shalay waxaan ka soo muuqday baraha bulshada oo dhan adduunka iyo caalamka oo dhanba ayadoo markaysa xaaladdu bilcagsi ay tahay dad fara badan baa ka kulmooday dad fara badan waa dambaabeen dad fara badan taa waxay yiraahdeen waa ka dulmigii lacagta xaaraanta oo dadka waan u isticmaal jira ku soo baxday sidaas uu waashay arrimuhu markaysa waa wala walba sibay u hadashay intii horta dambaawday shalay Allah cafiyo oo igu dambaawday oo qalad u fasirtay intii markaysa si dhinanka wanaaga ka fiirisay walaalkeen baa xanuunsaday ma si kala wax u soo kordheen ayagana jazaa'ullahu khayr Allah siiyo maanta siday ii jeedaan waa xaaladii dabiiciga ahayd oo igu yaqaaneen oo heybadii markaysa culimanimo heybadii markaysa shakhsi muslim oo Soomaali ah shakhsi bini aadana ay maanta ku jeedaan marka waxaan rabaa shalay dadkii faraha badnaa ee 2000 gaariyay iga duubay hawshii shalay ku dhex jiray marna aan rag matalayay marna aan dumar matalayay yani arrimahan markaysa qaab wanaagsan lahayn aan ku socday dadkii marka buraha bulshada geliyay waxaan ka codsanayaa inay ka saaraan oo arrintaas aysan sii soconin aysan markaysa noqonin arrintii ifkiga nabiga lagu sameeyay calayhi salaam oo kale oo meel walba gaartay anigu markaysa nabiga wuxuu leeyahay salaam qulubna aadam khada bin aadamko dhan waa gafaa kuwa gafa waxa markaysa u falli badan oo ilaahay u jecel yahay kuwa soo noqdo u tooba keena nafsul imaara iyo markaysa ayaa nala xiriirta iyo ma inna nafsal amaaratu bisuu ayaa markaysa nala xiriirta taawna laga soo qaado konton ila wasana jira waligay markaysa falka shalay dhacay ma ku fikirin mana sameeynin laakiin nafsi shaydaan ilaahay uu yiri inna shaydaana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakuna min ashabi as-sa'ir ayaa markaysa naftayda u qurxiyay nafsul imaarada ah bisuu ya Sheekh Abdulrahman su'aalan ku weydiino arrintaas adiga ma wax lagu sameeyay maxay tiri caqabada keentay maxay ahayd caqabada arrintaas keentay waxay dib horta la igu shilay gaarsiiyay lagu sameeyay caalamka oo dhan aanu sheego inuu muujinayo nabarkaas ku dhuftay Sheekh Abdulrahman nabarkaas ay ugu dhacay oo markaysa maalintii bisha 7 ay ahayd bisha abriil soo kuma jiro maalintii bisha abriil 7 ay ahayd ayaa nabarka ay ugu dhacay oo hadda laga joogo 13 maalmood ayaa nabarka ay ugu dhacay waxa iyo markaysa jirkeyga dhan oo la budeeyay ilaa sidii garaacay aan isku kaadkaadiyay ay laga takhalusaab la rabay ilaahay baa diiday maan subhanahu wa ta'ala ajalkeygan gelin dibkaan waxa ay geystay laba walaalaheeya oo iga waaweyn oo igu aabigu hooya mid leeyahay Abdullaahi Macow Xaaji Maxamed iyo Maxamuud Xaaji Maxamuud Macow Xaaji Maxamed anigana Cabdiraxmaan Macow Xaaji Maxamed la yiraahdaa Abdullaahi 60 jir waa 8 sano ugu weeyahay اوكي shacabka Soomaaliyeed maxaa ka codsanaysaa waa arrin family iska dhaaf hadda shacab maxaa ka codsanaysaa marka wax aniga shalay marka kacdoonkii shalay ahaa walaalahay ma ahayn dibka ii geysteen laakiin dawladda federaalka Soomaaliya fariin aan u diray ayay ahayd